asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha qaaliga ah meel dunida ka joogtaan halkani waa king solfer media anigu waxaan ahay king solfer walaalaha qaaliga ah soo dhawaada in badan soo dhawaada waan idin soo dhaweyn doona halkani waa gobolada ka jecel yahay walaalaha qaaliga haddii ay tahay adiga hadda idaawanaya markii kugu horeysa soo booqata aniga channelkayga walaal waxaan ka codsanayaa inaad ka mid noqoto asxaabta dhow ee aan ku leeyahay barta youtube-ka aan ku leenahay ee king solfer media walaalaha qaaliga ah halkani waa barta aad uga barateen xaqiiqooyin insha allah waxaa baraha bulshada la isla dhex kacay muuqaalo wareerayay ummadda aan sal iyo baaratoona lahayn waxaa shadii sharaf gacanta kusoo dhegtay ugu dambeyn lamaanaheeda qarniga ee aadifatahyar haddaba waxaan idin soo qadadhigi doonaa jacaylkooda goorta uu soo bilowday ilaa iyo hadda marxaladaha soo kala gaaray iyo jacaylkooda maxaa carqaladeeyey iyagoo muddo 3 sano ka badan wada socday haddaba waxaan daaha ka qaadi doonaa cidda jacaylka ku horeysay cidda carqaladaysay dadka soo dhexgalay dagaal iyo dacwo intaba waan gudagali doonaa halkani waa barta xaqiiqooyinka let's go midaan kaa raba shaadiyo mid kalaan raba su-aal kalena maanta meesha iga jawaabtid wax badan jaceylaan soo marnay waa soo jabnay waa soo ornay jaceylkeena inta ogaa og shactiro badan uu lahaa iyo xamaasad badan uu lahaa waxaan kaa rabaa inaad ii sheegtid shaadiyo labadeena jaceylkeena markuu adigana ku galay anigana marka dambe ay qabato gacanta aan kuu galay wixii ka dambeeyey ii sheeg hadda maanta alxamdulilah wiilaan noo joogo ilaahay noo deysto يعني جعل كانوا دلقات كيسي لها يسمر كيس ما أنا هرت وحاوي رونا الرمق كستوا واسكفوا إيه نيكا ويقدقي صح خير كانوا بحكوا نسيها بين لها عاي عبد الفتاح صح نسيها جروب صح أنا لو بدي رام مسكحة جاء جد عكارن جاء قرنطة جوجا جاء القلوة جوجا لكن سيدا إذا كانوا عاور ربطوا مركز تكتو سيرياس ماي horta shaadiyo horta way dabeecad fiican tahay way kaftan badan tahay way qosol badan tahay waxa markuu waxay yiraahdaan ilaa fal ku taala caadi fatax yare oo ah hadda sayga qaba shaadiyo sharaf waxa uu halkaas ka cadeynaya in jacaylka ay ku horeysay gabadha la yiraahdo shaadiyo sharaf isla markaasna isagu dib uu ka jeclaaday haddaba maxaa sababay in isagu uu dib ka jeclaado isla markaasna uu dareemi waayo jacaylka ay shaadiyo u hayso sidoo kale shaadiyo oo qirinaysa waatan jacaylku in iyadoo laftirkeedu ay ku horeysay waxaan rabaa ani adiga dadka waxaan rabaa inaad u sheegtid labadeena jacaylka ku horeeyay horta markaan sheekada idin falaqeeyo aan faara laakiin jacaylka labadeena anaa ku hormaray waa garta ma garateen waxaan ugu hormarin horta wax kale maahan waxaan arkay naag iga gaaban naag iga dheer naag dhexdhexa caadiyan amaba sida caadiga ah labada lamaane sida aan wada ognahay qof unbaa jacaylka ku hormara taana ceeb ma ahan in aad adigu wax hor jeclaato shaadiyana si geesinimo leh ayay ugu jawaabtay su-aasha uu weydiiyey ee bareerka ahayd saygeeda ay aadka u jeceshahay isaguna aadka uu jecel yahay cabdi fataax yar haddaba weli waxaan dul meeraysanaynaa daawadayaal ama dhegaystayaal jacaylka hadda ah ee kadib marka ay isguursadeen labada lamaane dib waxaan u jaleeci doonaa 2 sano ka hor sidee ayuu ahaa jacaylkooda 2 sano ka hor carqaladaha dacwada dagaalka dooda baashaalka kaftanka silaca saxariirta iyo wanaaga macaanka ay soo mareen labada lamaane ha ka labalabayn waliba qofka aad arkayso waa shaadiyo qof kale ma ahan badankiin waxaad moodaysaan qof kale ma ahan waa shaadiyo dabcan muuqaalkeeda sidan ayuu ahaa markii ay fanku bilaabaysay fanaaniintu laba qab ay fanku ku soo galaan dad hore laga aqoonsado dad cabaar soo jiitamo shaadiyo waxay ka mid tahay dadka aan horey laga aqoonsan waxay ahayd muuqaalkaad arkaysaan muuqaal balanbaalis studio ay duubeen saamicadda iyo asxaabtiisa 2 sano ilaa 3 sano ka hor haddaba muuqaalkan waxaad ka fahmi kartaa jacaylka labada lamaane waxaad aragtaa sida ay isugu la ciyaarayaan waxaad aragtaa sida ay isugu faraxsan yihiin ma ahan in hees lamaano un ay qaadayaan waa hees ay iyagu u arkaan dareenkooda in ay ku soo muujinayaan balse dadweynaha daawanaya
waxay u arkaan hees talantaali ah ee lamaane islamarkaasna ay qaadayaan fanaaniin uun ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed balse cabdifataax yare iyo shaadiye sharaf ayaa waxay u arkaan heeska kani in iyagu dareenkoodu ay ka hadlayso soona muujinayaan shacuurta dareenkooda qofba uu qofka kale u hayo hadda eeg waa yahay haddaba maxaa kala geeya calafka ayaa waxa uu aada ugu weyn yahay jacaylkee dhiindhiinta ah malabka ah macaanka ah sokorta ah waxaa si fudud ku wiiqay dayaarad ka timid hargeysa sida yurub kenya oo markaa iyada ah aada iloogu jeclaa wakhtigaa iyada ah ee muqdisho aada iloogu dhagaysanaya heesaheeda jacaylka ah ayaa waxa ay si qaab show ah ugu timid xamar markii ugu horeysay show bay ku qabatay showgii markay qabatay kadib wiilkani halaasiga ah bay is heleen adeer macaani waa isqoorsagaarayeen dhab jacayl waali ah baa dhexmaray waa la is guursay jacaylkooduna mid degdeg ah ayuu ahaa isbuuc iyo 2 isbuuc muusan dhaafsanayn horey waa la iska aroosay waa la heesay heeskan aad arkaysaan waa hees ummadda Soomaaliyeed ay aad ula yaabtay jacaylkan waalidi ah si degdeg ah ay isugu hor istaageen labadan fanaan si kastaba jacaylkii shaadiye sharaf halkaasi kumay sii dayn dhaxda ay u soo xeertay si allaala sidii ay ku kala geen lahayd labada fanaan ugu dambeyn waa ay kala tageen haye halka koomeysi harin wali waxay ku dadaashay sidii ay uusan jacayl ugu qaadi lahayn gabar kale cabdifataax yare oo warmoog ahaa sidii aad kusoo arkayseen muuqaaladii hore oo aan warba ka hayn jacaylka labada kaca ah ay mar kale u hayso gabadha la yiraahdo shaadiye sharaf ayaa shabaqa ugu soo dhacay ugu dambeyna 2019 gabagabadeedii ay bisha 12aad meelaha gacanta ay ku soo dhigtay isla markaasna waxa uu aqbalay jacaylka ay u hayso inuu mid sax yahay indhahana uu isaga dadi waayay